بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواده صافي channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlayaa arrin saameyn weyn ku leh adduunka oo dhan, khaasatan wadankeeni. Arrintaas oo ah waxa loo yaqaan GM food. GM food iska marka bari hore waxa la dhihi jiray oo Africa cunto fresh laga helaa, Africa GM food ma taal. marka maanta waxaan idin sheegayaa 11 wadan oo Afrikaan ah oo GM foodska inay sameystaan ogolaaday ayaan idin sheegayaa. GM ka qaarba waa level 11 wadan, qaar waxa weeye trial ay ku jiraan oo way tijaabinayaan, beero khaas ay ku tijaabinayaan, qaarna way tijaabiyeen oo وأنا already gaareen inay commercialize gareeyaan oo si commercial ah ay u produce gareeyaan. marka qaarna already waaba sameyn jireen. marka sida South Africa oo kale GM food ka very long time ay isticmaalayeen oo ay commercialize si commercial ay u sameynayeen. marka 11 wadan liiskoodii ay idin siinayaan. marka hadda waa Cameroon number 1, number 2 waa Ethiopia. qofkii Ethiopia joogay oo aaminsan GM Ethiopia ma taalo, inkastoo GM ka aanay 100% Ethiopia GM wada ahayn, laakiin GM ka way try gareeyeen wayna ogolaadeen inay commercialize gareeyaan oo produce gareeyaan GM foods. marka Ethiopia waa kamid wadamada GM ka ogolaaday. Ghana waa number 3, Kenya waa number 4, Malawi number 5, Mozambique number 6, Nigeria number 7, South Africa waa khabiir yaka waa already mar hore ba sameyn jireen waa produce gareeyaan si fiican. Tanzania waa number 9 waa trial gareeyeen hadda, laakiin trialkii way ku qanceen marka 2021 markuu sanadka yahay. Tanzania si caadi u iibin doonaan cuntada GM ka ah. Uganda waa number 10, Zambia waa number 11. hase yeeshee Zambia sharciyan lama ogolo GM in la abuuro oo la faam gareeyo, laakiin Zambia GM cunto waa ka helaysaa maxaa yeelay way soo import gareeyaan oo South Africa ayaa u soo import gareysa. maadaama South Africa GM ka ay khabiir ku tahay, Zambia way u soo export gareeyaan maxaa yeelay supermarketyo South Africa laga leeyahay ayaa Zambia ka furan. marka GM ka saasu Zambia ku mid, laakiin sharciga wadankooda GM ma ogola, laakiin business ahaan ku soo galaa. marka arrintaas anaga maxaa naga qusay? marka wadamadan Africa wadamo dawladda ka jiraan waa la pressure gareeyay, waa la karbaashay, dhabanada laga dharbaaxay, waa lagu khasbay inay GM ka ogolaadaan. Soomaaliya marka Soomaaliya cidna lama weydiinayo, cidna fasax lagama qaadanayo. Soomaaliya GM food waa taala si rasmi ah u taala, cid laga weydiiyay cid looga fasax qaatay mala. marka qoliyiin Soomaaliya joogo dhahay cunto fresh ah Soomaaliya aan ka helaynaa, uma maleynaayo Soomaaliya inay Kenya iyo Ethiopia ay maxay too ay ka fiican tahay. Kenya iyo Ethiopia waa lagu khasbay inay GM ka qaataan maxaa yeelay lacaga loo sheegay. cuntadan GM ka sida aad wada ogtihiin ba cuntada GM ka waa cunto si mass ah loo produce gareynayo. waxa loo produce gareynaa for example qof miskiin oo farm yar haysta loo imaanaya, waxa leeyahay seeds ka la siinaya, seeds kan beero. marka seed kan waxay ku soo saaraysaa for example tomato waxay ku soo saaraysaa badan waaweyn si dhaqso ah way kuugu soo baxaysaa. marka lacag sameynaysa beerta inta 6 bilood sugi lahayd 2 bilood kadib way soo tuuraysaa tomaatadii inta sugi lahayd inay ku soo go'do maybe 10 box oo tomaata inuu soo go'do qofkan ama 20 box oo tomaata ah 200 box oo tomaata ah kaaga soo go'aysa meesha. marka GM ka dadkan lacaga loo sheegay. GM ka marka waxa waa mass farming, waxa loo soo saaraa aan xad lahayn quantity-geeda. xabada hadii la rabo yaanyo waaweyn oo madaxaagaas la eega xitaa size-kay rabaan ayaga juice gareynaya, the size ay rabaan ay noqoto yaanyadaas. also nimanka waxay juice gareyn karaan
waxyaabo badan because waxaan waa genetically modified, genetically engineered. waxay engineer garayn karaan la yiri limit male waxay engineer garayn karaan tomaatada haday ka sameyn karaan inay noqoto tomaato waaweyn, inay noqoto tomaato badan, inay noqoto tomaato guduudan oo colorkeedii ay control karaan, oo sizekeedii ay control karaan, oo quantitygeedii ay control karaan, oo speedkay ku baxaysay ay control karaan. Can you imagine marka waxa kale ay control karaan? ma ka fakari kartaa waxyaabo badan ay control karaan, waxyaabo badan oo adduunka saameyn weyn ku yeelan doona ayay engineer garayn karaan, control karaan. waxay control karaan oo engineer garayn karaan in cudurrada qaar wadankaas ku bato. waxay engineer garayn karaan oo control karaan inay madhaleys ka dhigaan because Soomaaliya dhalinyarada ku badan, Soomaaliya dhalinyarada infertile laga dhigaya. waxay control karaan inay kuwaalaan mental illness inuu very high noqdo oo dadka mentally illka ah. bahalkan maxaa la GM ka waa hubka casriga ah, hub kale oo adduunka loo baahan yahay ma jirto. hubka casriga ah ee maanta la isticmaalayo waa cuntada. kuwa YouTube ka dhageysan jireen hay dhageystaan maanta. hub kale lagu dilo looma baahna, wax kale oo lagu yaryareeyo looma baahna, wax kale oo lagu gaagaabiyo looma baahna. GM food is the ultimate. GM food kaasa lagu soo daabacayaa oo already wadankeena way yaalaan. GM markaad GM beeratid, beer GM ah iyo beer organic iskama aqbixi karaan sida researchada lagu helay. GM iyo organic meel ma wada galaan. GM meesha haduu soo galo everything else meesha way ka baxayaan. labadooda la iskuma aqbeeri karo, ma wada jiri karaan. waana ogtihiin GM ka caafimaad darrada ay leedahay iyo sida loo adeegsan karo. waxa kale oo meesha ka baxaya small farmers ki yaryara. Soomaaliya iyo Afrika oo dhan waxay caan ku tahay small farming. companiyo waaweyn oo magaranaysa farming ka haysta ma jiraan. small farming kana meesha laga saaraya. qof kaliis barrier haysta ma arkaysid. big corporations, big companies farmers ka qaadanaya. maxaa yeelay GM small farm GM ma beeran karto. qof small farm ah GM ma rangarayn karto. GM waxa lagu rangareeyaa waxa waa technology iyo maxay ahayd waxa lagu rangareeyaa iyo chemical lagu rangareeyaa. marka qofka small farm ka aqoonteedaba ma laha inuu GM rangareystaba, aqoon uma laha. marka dadkan corporation kan waaweyn markay farms ka qabsadaan qorshahooda kale wuxuu yahay seedska. Soomaaliya seedka qofka markuu meesha beerto seedkiisa wuxuu ka dhiganaa next year uu beeranaya. next seedkii haysanaya. nimankan seedska marka seed ma haysanayso qofka small farm ka ah horta waxay convince garaynayaan seed free inay siiyaan. seed free gaas labadoo goor saddexdoo goor lagu siinaa beeraa lagu leeyahay. beertii laga yaabay inay 50 jawaan kaaga soo go'i jirtay waxa kaaga soo go'ayo 1000 jawaan kaaga soo go'ayo. marka lacaga sameynaysa horta in that case qofkii dee lacag rabo. marka seed bilaashna waa lagu siinaa. seedkaas bilaashka marka 2-3 goor beeratid beertaadi marka waa inay wax kale kuma beeri kartid. beertaadi wax kale maba ogolaanaysa seedkaas u baahanaysa. waa like drugs oo kale. qofka drugska marka hore free loo siiyaa, hadhowna waxa la dhahaa lacag keen. seedkan marka hore waa free, hadhow waxa lagu leeyahay lacag keen. seed marabta waa gadanaysaa. hadaadan gadan wax ma beeran kartid. hadaadan wax beeran lacag ma heli kartid. iyo waxa lagu barayba meeshii 50 jawaan ku soo go'aysi inay 1000 jawaan ku soo go'do 1000 rabta. qofkan iimaan lahayn oo waxba ka fakareynin 1000 jawaan rabta. 1000 jawaan marka this time si aad 1000 jawaan waxa lagu leeyahay lacag keen. seedka maanta waa lacag marka 4 goor free ku siinay. this time you have to buy. marka price-kana iyaga dejisanayo. price-ka iyaga ku haayo. labo seedkaagii is gone. seed ma haysatidba. marka horena dhiilka waayeba seedkooda kaliya ina beertid. seedki marka waa ina iyaga u doolatid oo ka gadatid. seedki ina ka gadatid marka waa price-ki iyaga ku dictate gareynayo. waxay rabaan ka gadayaan. maalintii rabaan seedka waa ka gadaa, maalintii rabaan ma ka gadayaan. okay? marka seedki Soomaaliya yaalay ama Afrika yaalay iyo beerihii baxayay dadka small farmers ka ay lahaayeen. kambaniyada waaweyn marka ay la wareegaan horta small farm meesha uu ka baxay because big companies soo galaayo mass farms ay qaadanayaan, mass production ay sameynayaan.
marka small farm ka maba jiraayaba maba jiri kartid because kambaniyada waaweyn maba la tartami kartid haday meesha soo galaan small farm meesha way ka baxaysaa iyaga maamulayo waa habka waska ka jira way hata habkaas Afrika hadda aadeen targetka waa saas seedka marka waxay sameeyeen oo kale oo naxdin leh oo warwar leh patent for example tomaatadii oo kale tomato seed adduunka way jirtaa tomato seed waa naqaana tomato seed patent u sameystay sharci u sameystay patent waxa way like marka qoraal la sameeyo kale book la qoro kale book soo copyright male productiga marka product leedahayna patent wax la yiraahdo sameysanaysa oo ah productigaas qof aan adiga ahayn inaanu sameyn karin sharciga u sameysanaysa marka seedkii ayay seedkii oo dhan ay patent gareeyeen for example tomaatado kale tomaatada seedkeeda waa caadi meesha adduunka way taala hadda laakiin marka la gaaro level aad ogolaatid in wadanka GM lagu qabsado GM tomato waa patented GM tomato raqaasa haysta GM tomato iskama soo qaadan kartid adigoo ayaga soo marin on ka soo gadanin marka la GM gareeyo everything marka la GM gareeyo alaabta GM ka oo dhan waa patent waaye nimankaas aad u doonanaysaa meel kale oo ka iibin karta male price kana iyaka iskale haday rabaan Soomaaliya oo dhan waxba dhigi kara waxba kama iibinayno seedskeena waa haysanayna haday rabaan price sare kaaga iibinayaan nolosha dadka ku qaaliyoobayso seedka markii cirka lagu geeyo balaas sunta ku buufinaysiina gooniya lagaaga gadaa sunta lagu buufinayo beertan gooniya lagaaga gadaa kiimikada technology-ga gooniya lagaaga gadaa waxa soo dhan marka gooniya lagaaga gado wixii way qaaliyoobayaan dadkii maba awoodaanba marka khatar badan soo socoto videogan hadaa daawatay oo aad nasiib u yeelatay inaad daawatid history book-gaaga ku qor 20 sano kadib waa is wareysanaynaa meesha sheekadan ku dambayso ninkii nool laakiin sheekada saasi ku socotaa seedskeena beeraheena la baabi'iyo dadka GM ka la baro loo engineer gareeyo cudurrada lagu ridaayo cimrigooda inta uu la rabo inuu gaaro dhasha intay rabaan inay dhalaan hadii la rabo gaajo hadii la rabo nolosha lagu qaaliyeeyo nolosha marka lagu qaaliyeeyo waxa badanaya de problem waxa badanaya maxay tuugada badanaysa dhaca badanaya dadka jirka iibsada badan hadaba waa iska dhibaataysanay laakiin markay nolosha adkaato waad ogtihiin nolosha markay adkaato adduunka waxyaabaha dadka ay u jeestaan marka GM Africa way soo gaadhay cuntada Africana GM waaye hadana tijaabaha ahaata laakiin mar dhow sanad ama laba kadib wadamada si badan ay u soo saari doonaan khataraha ay wadato inay og yihiin in kala ma aqaan Europe oo kale waa dad iska fakaraya waxay leeyihiin seed bank wax la yiraahdo dawladahan Europe seedki way aruursadeen bank ay gashteen seed bank bari hadii waxa aan sheegay ay dhacaan adduunka dawladaha jira ee runta ah seed bankooda way leeyihiin laakiin nimankan markay beeraheena sumeeyaan oo GM ku introduce gareeyaan seedkina ay patent u sameysteen can you believe in tomato ama mango ama banaanihi aad beeranaysay ay dad u sameysteen sharci ah inaanay iyaga cidaan ahayn laga iibsan karin can you believe that marka hore beertaada sumeynayaan waa free markay beertaada sumowdo oo taas waxaan ahayn aanay qaadi karinna waa inaad gadataa marka adinka ogsaa go'aanka u gaaraysan laakiin aniga information kaasa soo ogaado waa idin la share gareeyay maybe qoliyaha meesha dhageysan inay dhageysan doonaan ilaahay baan leeyahay waa idinkaas videogan la share gareeyay inta la share gareey kartaan wassalaamu calaykum waraxmatullaah